ururka dhalinyarada Puntland ee Waybiir ayaa munaasabado qalin jabin iyo xiritaan mashruuca ku qabtay degmooyinka Baargaal iyo Caluula ee gobolka Gaardafuu. mashruucan oo lagu magacaabo xoojinta dhaqaalaha dhalinyarada oo isbedel u ah falalka burcadbadeednimada ayaa waxaa maalgeliyay hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan horumarinta barnaamijyada ee UNDP waxaana ka faa'iideystay 140 qof oo ka mid ah dhalinyarada labada degmo. mashruucan oo isugu jiray xirfad abuuris iyo maalgelin qorshayaal ganacsi ayaa waxa uu dabayaalaa waxbarasho aasaasi ah oo soconaysa muddo 6 bilood oo la siiyay ka faa'iideystayaasha mashruuca waxaana la barayay maadooyin aasaasi ah oo ay ka mid tahay wax qorista, xisaabta, nabadda, dhaqanka, islaamka, xuquuqul aadanaha iyo wada noolaanshaha. kadib markii ay dhameysteen daruustaasi oo ay soconaysa muddo 6 bilood ayaa bishii Febraayo ee sanadka 2016 waxaa dadkii loo bilaabay barista xirfado ay ku maareeyaan noloshooda kuwaasi oo si istiqyaar ah ay u doorteen. xirfadihii dhalinyarada la barayo waxa ay kala ahaayeen korontada, dayactirka moobilada, xarqaanka qurxinta dumarka iyo hal-abuurka ganacsiga waxaana xirfadahaasi si isku mid ah looga bixiyay degmooyinka Baargaal iyo Caluula. kadib markii ay dhamaatay 4 bilood oo duruus dhigasho iyo baratigal isugu jirtay waxaa ardaydii mashruuca la siiyay fursado ay ku soo qortaan qorshayaal ganacsi si loo maalgeliyo iyadoo loo tixgelinayo maadooyinka ay barteen. haddaba ururka dhalinyarada Puntland ee Waybiir ayaa idin soo gudbinayay muuqaal ka turjumaya qaabka ay u dhacday xafladihii Baargaal iyo Caluula kuwaas oo ku saabsaneed qalin jabinta ardayda iyo guddoonsiinta badeecadihii ay doorteen. وهرتايو bulshadu intifaacsatayo aasaaskuna waa iyada aqoonba lagu hirtaayo bulshadu intifaacsatayo aasaaskuna waa iyada jaliga kaweyn ayadku ma sheegino markaad baratada fiici adiyo ummadaadiyo adduunyada haybsata adoos jaliga kaweyn ayadku ma sheegino markaad baratada fiici adiyo ummadaadiyo adduunyada haybsata taadan baan laylada anigu ka tagi lahaa adduuniya aakhiraba ilaas bay ku tahay awlaada ku dara dugsiga taadan baan laylada anigu ka tagi lahaa adduuniya aakhiraba ilaas bay ku tahay awlaada ku dara dugsiga haddaynan sama abuurayn bulshadu ma islaaxato ixtiraamku kaluma sama abuurayn bulshadu ma islaaxato ixtiraamku kaluma umii aabbuhu in badan waxay adigoo ilmaa wana ku abaabiyeen markaad oradad dhaqaaqdo inaadan bataa u xuwe
duqa degmada baargaal gudoomiye ku-xigeenka degmada xogayaha nabadoonada macallimiinta marti sharafta ciidamada dhammaan miidiyaha iyo dadka ka soo qaybgala barnaamijkan oo idil waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu mar kale magacayga waa cabdiqaadir waa isnaqaanay muddadii ugu dambeysay waxaan rabaa inaan ka bixiyo faahfaahin yaro kooban marxaladihii uu barnaamijkan soo maray oo ay ugu horreysay marxaladii diyaarinta 70 arday ee sanadka hore taas oo dadkan loo diyaariyey waxbarashada asaasiga ah la baray qaabka wax loo qoro iyo qaabka wax loo dhigo la baray qaab ma taqaanaa duruus asaasi ah oo muhiim u ah qofku marka la rabo inuu galo waxyaabahan loo yaqaan academicska ama waxyaabaha waxbarashada la xiriira alla mahadiisi sharaf leh oo gobonimo leh reer baargaal ku dhameysteen kadib waxay nasiib u heleen in mar kale dadka tiradaas ma taqaanaa wax la baray in loo sameeyo xirfado kadibna loo sameeyo maalgelin waxaad ogtihiin inaad aad nasiib badan tihiin in degmooyin badan oo kale aysan helin fursadda inay dad badan markaan wadada soo mareyno ay ka masayraan oo yiraahdaan dhulku ma baargaal oo kaliya sababtu waxa weeye wax kale ma aha waxa weeye kasbasho waxa weeye wanaag iyo soo dhaweyn laydin kala kulmay idinka taas waxay keentay in riboodyadii iyo warbixinadii laydinka qoray ay idin sameeyaan weji wanaagsan kaas oo soo jiidasho u sameynaya dhammaan dadka daneeya waxyaabaha la xiriira humanitarianka ama bini'aadantinimada iyo ma taqaanaa waxbarashada sidaa awgeed mudanayaal nabadoonyaal iyo dhammaan dadka ka soo qayb galayba dadkan waxay ka kooban yihiin 70 qof oo kala bartay 5 xirfadood oo kala duwan kuwaas oo kala ah korontada moobilka farsamada moobilka harqaanka iyo ganacsiga iyo sidoo kale beauty salonka ama waxaan farshaxanka loo yaqaano dumarku sameeyaan dadkaas 70 qof ka kooban muddo waxay ku dhiganayeen degmada dawladda hoose guriga u dhow dhismaha u dhow ee suuqa iyo dhismahan imika aan joogno oo ka tirsanaa programkan deegaanka lagu horumarinayay 70 qof si sharaf leh ammaan mudan wanaag mudan ayay macallimiintii u dhigaysay programkan ugu soo tabceen taas oo na siisay guusha ah inaan maanta halkaas ugu wada nimaano guusha ah inaan aniga cabdiqaadir iyo xasan iyo tiimkaygu inaan ku faanno waxa ay ma taqaanaa maanta inoo hor yaala waxay ahayd guul ay sameeyeen ardayda dhammaan guul ay sameeyeen dadka deegaanka oo runtii sameeyey ama tusay bisayl iyo walaaltinimo iyo wanaag iyo inay diyaar u yihiin inay wax qabsadaan programkan ma noqon doono insha Allah kii ugu dambeeyay haddaana annaga fulin barnaamijyo kale oo wanaagsan baa ka fuli doona deegaanka waxayna taasi soo jiidashada ugu weyn waxa keenaya waxa weeye riboodyada iyo warbixinada laydinka qorayo dadkan mudane gudoomiye mudanayaal dadkan markii waxbarashada ay dhameysteen qorshuhu wuxuu ahaa in loo sameeyo maalgelin wixii ma taqaanaa dadka aan ahayn ganacsiga siiba dadka ah waxay ahayd in loo sameeyo maalgelin cash oo ma taqaanaa bay ahayd laakiin systemkii hay-adaha qaramada midoobay oo isbedelay maadaama waddanka ay dhibaatooyin badan ka jiraan oo ay ka mid tahay dadkii dhalinyarada ahaa oo tahriibaya dadkii oo ma taqaanaa khatar ka weyn wixii loo waday usoo ma taqaanaa horkeenaya dadkii dhalay dhib ka weyn u keenaya qolooyinka UNDP waxay nagu khasbeen in dadkan loo sameeyo maalgelin badeeca la xiriirta marka hore dadka korontada kuma jirin dadka moobilka kuma jirin dadka ganacsiga bay si gaar ah arrinta u qusaysay marka qolooyinkaas waxay xataa soo weydiiyeen in maamulka degmada iyo dadkaasi ay arrintaas ayagana ka warqabaan arrinta marka ma ahayn arrin annaga aan god ku qarsanay arrin aan luuq la galnay waxay ahayd arrin shafaafiyad ay laga dheehan karo iyo daalacnaan aad u baaxad weyn waxaa la xayeysiiyey shirkadaha la xayeysiiyey oo waxaa la yidhi yaa alaabaha soo sameynaya shirkadaha ku guulaystay 2 shirkadood
shirkadahaas baa alaabtii mataqaanaa category ama qaybahaad u fadhidaan shirkadahaas baa soo sameeyey. shirkadaha markay soo sameeyeen baa waxaa la sameeyey haddana dadkii la wacay oo la weydiiyey waxa ay doonayaan. soo dhammaan dadka badi dadkii ka jawaabay telefoonkooda, dadkii la haleelay xataa dhowr isbuuc ayaa lagu celcelinayay, waxay alxamdulillah fursad u heleen inay doortaan waxa ay rabeen. soo waxaa wax lagu faana amaanta in qof lagu khasbo meesha inuusan jirin, walow xataa dadka ugu dambeeya ha noqoto waxay kala dooranayeen waxa ay rabaan. soo waa maxay qof walba maanta lama uu joogo wax uu doortay mooye wax kale. taas waa taas. waxaan rajaynayaa programkan inuusan noqon program mataqaanaa kii ugu dambeeyey. alaabtan waxaa laidinkugu keenay maaha in la cuno, inaad cuntaan idinka oo gashataan oo ay isticmaashaan oo aad noqotaan qofka ugu dambeeya isticmaalaya ma ah. harqaan baa lagu keenay. harqaankan wuxuu shaqayn karaa muddo ka badan 10 sano. waxaa lagugu talagalay inaad ku shaqaysatid oo halkaa kasii hormartid. laguguma talagelin weligaa inaad harqaan la sii noqotid. waxaa lagugu talagalay inaad meesha kasii hormartid. waxaa lagu siiyey badeeco la xiriirta dharka. waxaa lagugu talagalay arrintaa waxaa weeye inay bilow ku noqoto. dadka taajiriinta caalamka ah ee ugu lacagta badan adduunka ma aha dad kor ka soo booday, ma aha dad mataqaanaa 100 milyan aabayaashooda ga dhinteen. dhammaantood waxay soo mareen rafaad, waxay soo mareen baalashlayaal, waxay soo mareen shaqooyin badan oo liita, kadibna waxay gaareen meesha aad ogtihiin. sidaa awgeed waxaa aaminsanahay inay kartidaas idinku jirto, siiba gabdhaha inay kartidaa idinku jirto inaad mustaqbalka noqotaan ganacsato guulaysata oo uu programkan iyo YBirna ay u noqoto tusaale aad u wanaagsan. sidaa awgeed ma rabo inaan khudbadda kusii dheeraado. waa bil Ramadaan, waan la daalanyahay maanta dhan shaqo ku jirnay isbuucyadan iyo bilahan oo dhan. waxaan rajaynayaa in programkan aad sidii laydinkugu talagalay uga faa'iidaysataan. waxaan fariin idinka wadaa hay'adda UNDP oo runtii programyo iyo barnaamijyo aad u baaxad weyn ka qabatay gobolka Gaardafuu. waxay ka qabatay ilaa deegaanka Caluula, xaabo bridge loo dhisay xaafadda Dayaxo, dhismahan ay imika joogno oo ay UNDP dhistay. waxaasoo barnaamijyo ah oo la sameeyey waxay ku yimaadeen reportskii YPir iyo UNDP ay idinka sameeyeen. waxay ku yimaadeen wajigii quruxda badnaa iyo soo dhaweyntii laydinku tilmaamay bay ku yimaadeen. haddii hal fal oo xun ama ficil xun oo yariisa oo deegaanka ka dhacay mataqaanaa la report gareeyo waxay keenaysaa deegaankaas oo dhan in laga guuro oo aan waxba cid soo martay is jirin. marka waxaa idinku mataqaanaa hambalyaynayaa, idinkuna baraarujinayaa in ammaankiina iyo wada noolaanshaha iyo walaaltinimada iyo kalgacaylka iyo isdhagaysiga intan mataqaanaa wanaagsan u imika maraya aad kasii laba jibaartaan. intaas baan kusoo koobaya. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. cabdulqaadir aad buu u mahad. waxaan salaamaya guddoomiyaha degmada, xogeeyaha dowladda hoose ee degmada, nabadoonada degmada, haddii alla ku ron yahay macallimiinta, ardayda, marti sharafta kale iyo ururka haweenka kale ee isugu yimid meesha dhammaan waa salaamaya. ciidanka nabadgelyada sidoo kale iyagana waa salaamaya. salaan kadib runtii wax walbaaba waxay leeyihiin bilow iyo maxay dhammaad. muddadii hadda laga bilaabo ilaa iyo sanadkii kale hore bishiisii 7aad awalkeedii ilaa iyo hadda waxaan kusoo dhex jiray mashruuca kan maanta gabagabada ah oo mar faasil soo kala dhex galay isagoo weji hore lahaa. wejigiisa horena waxaad kusoo barateen saa la socotaanin wax qoraalka way ka mid yihiin xisaabta ingiriiska, haddii aan la ku ron yahay cilmiga bulshada iyo artiska iyo waxyaabahaas oo dhan. runtiina wuxuu kusoo dhammaaday si guula. bulshadana waxay uga faa'iidaystay sidii loogu talagalay. qofaan wax qori jirin baa wax qoray, qofaan wax akhrin jirin baa wax akhriyey. haddii aan la ku ron yahay waxa weeye faa'iidada laga soo gaaray kaas horeyna u sheegnay. waxa weeye dib lagu soo celiyaa runtii ma fiicna. waxaa inoo bilowday kiisii labaad oo hadda aynu ku guda jirnay inoo bilowday bishii labaad. haddana inoo soo dhammaaday bisha 6aad oo isaguna inoo socda 4 bilood. 4 bilood mashruuca kii hore mar hadduu ahaa wax dhigasho iyo wax akhris iyo maadaama qofku u baahan yahay horta marka hore in la soo tarbiyadeeyo oo qaabka wax dhigaalka iyo cabirka iyo xisaabta iyo la soo baro, kadibna la bari karo markaas kadib xirfad la bari karo. sababtoo qofkan qoraal iyo xisaab aqoonina lama bari karo, xirfad lama bari karo, harkaana lama bari karo, koronto lama bari karo, diyaal ku reeyo ganacsina lama bari karo. saas darteed mashruuca ka dambe wuxuu noqday mashruuc xirfadeed. xirfaddu waxay noqotay xirfad ganacsi. seebaa ku ganacsanaysaa, maxaa ka ganacsanaysaa, bulshada ka ganacsanaysaa, see ula macaamilaysaa, haddii aan la ku reeyo maxaa faa'iido ku jira, maxaa khasaare ku jira, see u dayanaysaa suuqa xagee ka dayaysaa waxyaabahaas waxay ahaayeen duruusta ku soo barteen ardayda maxay
casharadii baxay sidoo kaleeto korontada injineer sar mahdaa ka gaartay dadaal aad u badan buu muujiyay runtii waxa weeye intii hortiina ka arki doontaan insha Allah waxyaabo soo bandhigi doono isagana waxa weeye mahad gaar ayaan ugu celinaynaa dadaalkii gaarka ahaa uu sameeyay ahaa ka wadaninimada ahaa iyagana waxa weeye runtii taasuna waxay horseeday muhiimadda ah isku filaanshaha degmada Baargaal inay gaadho isku filaansho ay ka gaarto harqaanka isku filaansho ay ka gaarto korontada ay ka gaarto farsamada moobilka ay ka gaarto ganacsiga waxyaabahaasna oo ahaa waxa ka turjumaya mashruuca kan runtiina way u fulaan dhihi karaa moobilka khariban oo dadka khariban ayaa dhammaan ardaydeena samaysay oo ay u sameeyeen dad deegaanka degan korontadii bay xira karaan inta loogu talagalay ilaa hadda oo runtii cilmi kafayn kara kalsoonaan lagu qabo oo injineer farsamadaas oo tababaray waxay tali karaan oo harqaankii waxa weeye haddana kuwaas naftooda iskaga filaaday dariskoodana ku filaaday insha Allah bulshada ka inteeda kale inay ku sii filaadaan waa rajaynaynaa sidoo kale ganacsigu dadkii hadda hore u soo wadana waxay sii noqon doontaa korarsi kuwa hadda bilaabi doonana insha Allah waxay noqon doontaa bilow kuwa ka horeeyay iyagana insha Allah kaga doon doonaan wixii cilmiga iyo qaabka u dhaqmi lahaayeen runtii duruusta ay ku soo qaateen iyagana waxa weeye kolley waa wax laga sugaya iyagana inay runtii sii dhaqaajiyaan inta kastoo aan ku sii dheeraan mashruuca waxaan runtii aan rabno oo muhiimadda ay tahay waxa weeye in waxa kan gacanta laga geliyay noolaanin wax dadka anfaca wax walba waxa la rabaa waxay inay deegaan ku soo laabtaan qofka waxa loo baahan yahay inay aysan wax cawday lagu soo dhicin oo ah inay wax kale meel kale inoo ka gudbaanin wax walba ay noqdaan waxa inagu iska filanahay inaga iyo dadkeena farsamo bartay waa mahad ilaahigay waxaanu aan ka codsanaynaa UNDP iyo Waybiirba waxbarashadu intaanu naguma filna hanaloo wado hanaloo kordhiyo fayska labaad qofku qarqaanka hadduu bartay wuxuu u baahan yahay inuu qofku meel furto kii kale oo moobilada waa inuu dukaan furto kan kale oo korontada sidoo kaleeto isaguna waa inuu dukaan furto dharlahu waa inuu dukaan furto cuntadu waa inuu dukaan furto runtii businessku waa hoos kor lagama soo bilaabo wax yar baa lagu bilaabaa wax yar baana wax lagu gaaraa waxaan leeyahay hal iskaalmaysto waxaan kaloo idin sheegayaa dhammaan nin walba alaabtiisa uu haysto hadda uu ku fadhiyo qof eheladiisa hala qaado baa la qaadaya ha u yeerto tartiib qof kasta wixiisa isaga iska leh waxaan u maleynayaa qof kasta inuu qof la socdo qof kasta inuu qof la socdaan rajeynaya hadda waxaan mahad weyn u celinayaa nimanka macallimiinta waxbarashada galay oo teknikada macnaha ama moobil ha noqoto ama farshaxan ha noqoto ama kharkhaanle ha noqoto ama moobil ha noqoto mahad baan u celinayaa waxaan jeclahay macallin wixii damo yimaadana annagu waxaan ku caanbaxnay macallimiinta Baargaal baa laga keenay meel kale lagama keenin taas waa sharaf bay noo tahay macallimiintu waa reer Baargaal bay u dhasheen wixii damana waxaan rajaynaynaa wax kastoo yimaada in la ka helo ka Baargaal ahaan oo aan dhexdayada aan anagu aan macna ka kaaftoono macallimiin dibadda in loo ka keeno haddana waxaan xafladda ku soo xirayaa shahaadooyin baa la bixinayaa hal la sugo yaan la kicin wabillahi tawfiiq kiiska qabso محمد مو مدد سعد محمد سامير سامير سعد محمد صالح اسمع محمود شيرة يردو محمد حسن مبارك محمد حسن واحد كده انا ما شاء الله سعودي هذا على جسر صحيح سلم
maasantii marka saas sida lagu sheegay saddex baa ka dhiman dib u soo celin shahaadooyin korontada qolada korontada ayagana shahaadooyinkooda dib baa lagu noqonaya imtixaan baa laga qaaday qolada korontada waxaa la sameynayaa maadaama wuxuu koronto tahay ay leedahay standard qofka la rabo inuu gaaro marka la rabo korontada in la siiyo la rabo in la hubiyo imtixaanka waayo waxa waa khatar keeni karta inuu qof kale waxyeelayso ama naftiisa waxyeelayso marka waxaan sameynaynaa ayaga imtixaan baa marka laga qaadaya kooxdaas isku soo diyaariso imtixaanka ugu dambeeya dadka ku baasa baa waxaa la siin doonaa shahaadooyinka alaabta laakiin waa la weynsiiyey dhammaan laakiin waxaa la sameynayaa shahaadooyinka muctarifka ay wasaaradda shaqada shaqaalaha ka soo baxaya sidoo kale dee la oranayo yaa qofkan soo tababaray waa inay sumcadda macalinkana ilaalina laftirkeeda marka waxaan sameynaynaa soo celiya iskuna soo diyaariya imtixaan insha allahu tacaala السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.